callankaagu waa hibo sharaf kugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiiranayse callankaagu waa hibo sharaf kugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiiranayse السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب قيمة بدن وحنشوفنا الدجاج كردبط حنان بوغضنا إن شاء الله قوب آد عجيبة وآثار قديمة يكتو جنتي ولا سكيل هل كسم بوغضنا إن شاء الله ونقص عنا اسم سعودنا سنة أصحابتي haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo wana lama huraane hagarli wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hooy laga orane buurta laaskeel waa buur taariikhi ah taasoo taariikhdeeda la helay sanadkii 2002 waxaana cilmi baadhistan ku sameeyey koox Faransiis ah waxaana cadeeyeen inay ahayd goobtu goob ay dad hore deganaayeen kuna sawireen sawiradan hadda ay indhihiinu qabanayaan hooy laga oranay helay ooy hanfi iyo kulayliyo baraf male dhulkeenu ye inaga halayne Soomaaliyey hoy dadka deegaanku waxay hore u aaminsanaayeen inay tahay buurta jinka balse cilmi baadhistan kadib waxa la ogaaday inay buurtu tahay mid taariikhi ah oo ay dad hore deganaayeen sanadkii waxa dalxiis u yimaado buurtan laaskeel boqolaal qof oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali waxa xusid mudan in aan laga qaban wax qabadkii loo baahnaa goobtan taariikhiga ah taasoo yahay in laga dhigo goob u diyaarsan dalxiisayaasha sanad kasta soo booqda buurtan cajiibka ah ee taariikhda badan ku duugantay loo wada hamuume buurtan waxa warbixin kooban taariikhda naga siinaya mid kamid ah dadka deegaanka ahna wiilka safarka nagu wehelinayay Cabdirashiid Cali Xasan Gini waa kan isagoo inaga waramaya buurtan taariikhda meeshu waxay ahayd magarnaysaa meel ay degan yihiin amba boqortooyadii waqtigaa talinaysay ay deganeed amba madaxweynihii waqtigaas ayaan odhan karnaa sidoo kale waxaan odhan karnaa dadkaas waqtigaa ay noolaayeen sida magarnaysaa sida inoogu cad xabaalahooda meel xagga daba ku yaala meeshaas dadkaas xabaalahoodaas waa 6 mitir inagana xabaalaheenu waxa weeye waa 1 mitir marka sidaas waxaynu ku ogaan karnaa inay tahay de meeshaasi ay ahayd magaalada dadka ku nooli dadku aad u waaweyn oo inaga aad inoogu waaweyn ayaa suurtagal sidoo kale imika qolkani waxaan taaganahay waa qolkii ugu weynaa waa qolkii miitinadii shirku ka dhacay qolkani dadku sida arkaysa halka barxad weyn ba ah barxadaas dadku soo taagi jireen kadibna boqorka waqtigaas maamulayay halkan buu ayuu magarnaysaa ugu qodbadan jiray sida imika hadalkayga ka muuqda imika baayarka kaa jooga codkayga caadi u maqlaya ya markaa waxay ka dhigan tahay dadku intay halkaas soo tubaan ilaa iyo dooxa inay dee hadalka boqorka si fiican u dhageysan jireen sidoo kale halkan waxaad ku arkaysaa in magarnaysaa saci ku sawiran yahay dhulkaaga hooyo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo